munaasabadan oo ahayd mid lagu maamuusayay 54 guuridii kasoo wareegatay markii ay xornimada qaateen gobolada Koonfur iyo Israaciil labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Cape Town ee dalka South Africa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Western Cape goobta ay xafladu ka dhaceysay ayaa waxaa si weyn loogu xardhay boorar ay ku qornaayeen halkudhigyo lagu muujinayay midnimada bulshada Soomaaliyeed sawirrada madaxda qaranka ee iminka haya talada dalka iyadoo sidoo kale goobta ay ku soo buux dhaafiyeen dhalinyaro ku libisnaa dhar laga sameeyay midabka buluuga ah ee xidigta cad dhaxda looga asteeyay kuwa ay ka muuqatay farxadda dabaaldega kooda luuliyo Sheekh Daahir Cali oo kamid ah waxgaradka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Cape Town isla markaana halkaasi hadallo u badnaa taariikhda munaasabadan ka jeediyay taa oo si weyn uga faa'iideysteen dadkii ka soo qayb galay oo u badnaa dhalinyaro aan wax badan kala socon qiimaha kooda luuliyo maxaa kale dhalinyaro dalkii idinka jiilkiina kala ha ku badbaado oo sida hadda aad fadhiga ugu midaysan tihiin in Soomaaliya dhanita gacnaha isu qabsato wax isla buushgarayso hal helo oo adinku sabab u noqdo oo cudurkii wax dimeeyaan u saameyn intaas kadib anoo ka faa'iideysanay fursadaas waxaan u baaqayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay midoobaan wax walba ay ka tanaasulaan oo wax walba ka hormariyaan danta guud oo ah Soomaalinimo sidoo kale waxaa mudnaanteeda leh inaan xusno caawa 26 Juun oo ah maalinka ugu horeysay dhul Soomaaliyeed ama geey Soomaaliyeed laga taago calanka Soomaaliyeed ee quruxda badan سأتكلم عن برشلونة النقلة لماذا كشكينا قبيلة يقرب وحيامها إن كلا جينا عن السكتانو وحيامها إيميج كان جود إلى قرقنا إن السكتانو يصير جود أو من لماذا يمروا بوا الله وبعثنا Somalia waxay ii sheegay xabnagu waa waxaan gabadhuna waa qaali Ramadan Ramadan bilowsada waxaan ii sheegay hadii aan walaalo noqono oo qabyaalada iska reebto inaanu gaarayno horumar adduunka aqrab ugu dambeyntii gudoomiyaha Safe Somali Community oo xafladda soo qaban qaabiyay Yusuf Umar Ahmed ayaa kula dardaarmay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ka soo qaybgalayaasha xafladda in laga wada shaqeeyo danta guud si looga baxo dhibaatada waqtiga dheer qaadatay waxaan u baahanahay inaan ka dhabayno Soomaalinimada danta caamka ah waxaad ogtihiin Ilaahay markuu ka hadlayo midnimada cibaadada xataa waxay ku fadli badan tahay in si jameeca loo wada cibaadaysto وأضفتين قف كستمو كدركسن تاي لكن مصيبة نقول على واقع صورة إلهي نكمل تاي إلهي قوم كوذلي ربو إنه سقفه برين لكن علي قادم أنت شكايو أو إسقط إنه إن الأسوء عشان نقرأ نمضيني ونوادي كنا intay socotay munaasabada ayaa waxa halkaasi heeso iyo riwaayado ka turjumaya qiimaha wadaneeda ku soo bandhigay fanaaniinta Soomaalida ee ku nool magaalada Cape Town ayadoo xafladuna ay ku soo ilaatay jawi aad u wanaagsan Abdullahi Mahmoud Amin Abdullahi Qorshe warbaahinta qaranka Soomaaliya Cape Town South Africa